بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي السلام أصحابتي قالقة أود أفك أوليه أيا إدين شيء أيا صومالية أفكان أتكو هاد ليست أود وين أيوليه هذا أديك كاسو بحايا وحبو دلا وحبونا نوليا مركي لغا صوتغو إسل عرب كاس أي أديك نار كوجين كرو جنن كوجين كرو مركي لغا صوتغو إسل عرب كاس أي عدو كويالن كرتا صاحبنا كويالن كرتا markii laga soo tago isla carabkaas aad ku hadlaysa ayaa hadafyadaadii noloshaadii aad ku baabi'in kartaa ama aad ku xaqiijin kartaa sidee ina isweydiisaa laga yaabaa aamus haddii aad rabtid inaad qorshayaashaada ay ku hirgalaan aamuska ku dadaal oo ha dhihin qorshahaasaan rabaa hadday dhacdo inaad dad u sheegatid ha ahaadaan 1 2 3 4 aadan ka maarmin oo aad jeceshahay oo ogtahay qalbiyadooda inay nadiif ku yihiin ayagan agtooda aad qaali ku tahay oo waxba aanay ka burburineen kaba si fiican hadii kaliga aad ku koobtay laakiin anaga Soomaaliyeena Soomaha waa isna qaana kaba si fiican marka afkaas waxa aad ku cunaysid wuxuu noqon karaa asagan wax ku dilo oo caafimaadkaaga antib ah ayaa gelin kartaa wuxuu noqon karaa wax caafimaadkaaga ka shaqeeya waxa aad ku cunaysid mar walba waxa waa afka awoodiisa aad ay khatar u leedahay waxaad ku dhibaateyn kartaa qof walaalka ood ku dheereyn kartaa waxaad ku soo dhaweysan kartaa cadow qof shalay ku ahaa ayaa ku soo dhaweysan kartaa marka mar walba afkaaga waxa waa ilaali ka hor kelmada ka soo baxeys adoo awood u leh inaad wax hagaajisid ha dooranin wax burburin ha dooranin wax dumin ha dooranin dadko dhan inta awoodid waxa waa jeclow dadko dhan waa jeclaan kartaa awoodid ma waa jeclaan kartaa ilaahay wuxuu abuuray dhan waa jeclaan kartaa hadii qalbigaaga uu jecel ka buux qalbigaaga nadiif ka dhig dadka u dee allahi qalqay u dee inta awoodid wax hagaaji oo wax hagaajintaas noqoto dhinaca hagaagsan wax duminta ha u adeegsan afkaas marka afka wuxuu noqon karaa amba carabkaas lagu hadlaayo mid adiga aad naftaada ku dishid amba aad ku daaweyso ayuu noqon karaa mid wuxuu noqon karaa dadka hareerahaaga ayagana aad ku dishid ama aad ku daaweyso ayuu noqon karaa mid aad ku kasbanaysid cadow ama aad ku kasbanaysid saaxiib ayuu noqon karaa mid maxal sirahaagi adiga aad ku siinaysid dadkii cadawgaaga ahaa aad dhehaysid bari ka maalin igu dila ayuu noqon karaa mid aad ku amaan helaysid afkaagii haddaad aamustid oo aad qarsatid hadafyadaadii way ku hirgalaan wax la hubana waa in badan markaad tiraahdo hadafkaas hebel ayaan sameynaya hadaf hebel oo dadko dhan aad u digatid sidii aroos oo kale inta hadafkaas ma ku hirgalay xataa haduu yahay wax easy ah oo aad u fudud oo macno weyn aan lahayn ma ku hirgalay maxaa u maleysay wax weyn oo mustaqbalkaaga wax ka bedeli karo ama saameyn kugu yeelan karo marka qalqiga ilaahay oo dhan u sheegtid koo soo diro koo soo diro xasid koo maxay ahaatay negativekiis kugu soo daadiyo oo wixii oo dhan waxay noqonayaan kulligood amarka ilaahay waay laakiin adiga afkaaga ayaa ku keensatay marka intii awoodaada waxa waa afkaaga ilaali waxa aad ku dhehaysid ilaali waxa aadan dheheen kala baro iyo waxa dhehaysid ka hor intaadan dhihin waa hadalka ka soo baxaya wuxuu noqonayaa falaartan haday baxdo waxa way ma soo noqonayso falaar la gamay waa baxda ma soo noqonayso inay wax disho iyo inay wax dardarto labada mid ay noqonaysaa ama aanay dilin laakiin ay xanuunjiso marka afkaaga mar walba ilaali naftaadan ku ilaali kuwa hareerahaaga iyo qalqiga ilaahay oo dhan waxa waa afkaaga ka ilaali carabka waxa uu naarta ku geenayo jannada ku geenayo noloshaada ku hagaajinayo kana baabi'in karo asaga marka carabkaas ilaali